maxkamadda degmada Gurceel ayaa xukun ku riday 4 dhalinyaro ah oo kol hore lagu soo eedeeyay inay kufsi u geysteen gabar ku nooleed isla degmada taas oo dhageysigeedu socotay maalmahan xarunta maxkamadda waxaa ku sugnaa ehelada eedeysanayaasha iyo gabadha mas'uuliyiinta maamulka degmada saraakiisha laamaha amniga iyo dadweyne kale oo ka soo qayb galay Ismaan Cali Hudey taliyaha amniga Gurceel ayaa akhriyay gal dacwadeedka eedeysanayaasha waxaan maxkamadda hor keenay taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 2 2019 eedeysanayaasha kala ah Cabdullaahi Axmed Ciise Nuune Taahir Cabdulle Waraf Bidaar Ismaan Saataq Shigshigow Aadan oo soo eedeeyay taariikhdu markii ay ahayd 27 bishii 12 2018 Nageeye Maxamuud Tarabbi oo ku soo eedeeyay inay kufsi u geysteen gabadhiisa Roodo Nageeye Maxamuud Tarabbi uguna geysteen degmada Gurceel nimankaas ayaan waxaan soo waafajinay maxkamadda xukunka ay leeyihiin maxkamadda ayaa maanta ku dhawaaqi doonto hadii alla idmo inta kadib gudoomiyaha maxkamadda degmada Sheekh Maxamuud Jimcaale ayaa sheegay in dhalinyarada 4 ah ay u soo baxdo in la dhaariyo maadaama 2 kamid ah aysan qiran inay gabadha kufsadeen halka 2 kale ay sheegeen inay gabadha raali uga ahayd halkaasi waxaa dhaar uga soo baxay gabadha kufsiga loo geystay walow markii dambe ay dib ugu radisay dhaarta labadaasi dhalinyarada ah dhaarinta kadib waxa ay garsoorku ku dhawaaqeen xukunka eedeysanayaasha Waraf Xasan Bidaar wuxuu qirtay gabadhaas inuu isticmaalay laakiin ay ahaayeen heshiis maadaama uu niyar yahay oo bikri ah oo hadda ka hor guur soo marin lagu xukumay xaduud ah in lagu dhufto 100 jeedal waxa kale oo uu qirtay inuu sameeyay ka amar ka duubay gabadhaas duubitaankaas waxaa lagu xukumay 6 bilood oo tacsiir ah waxa ku xiga ninka la yiraahdo Sadiiq Shigshigow waxaasna lagu xukumay intoo kale maadaamadii oo qirtay gabadhaas in uu ku sameeyay isticmaal zina ah kana dhaartay kii qasabka ahay kana uu qiran yahay waxa ku xiga ninka la yiraahdo Nuune Taahir Cabdulle wuxuu ka dhaartay gabadhaas inuu waa isticmaal ku sameeyay wuxuu qirtay gabadha inuu geeyo guriga dibkaan ka dhacay sidaas darteed maadaama uu kaamarada wax ka duubay asna 6 bilood oo tacsiir ayaa lagu xukumay xabsi ah waayahay ninka la yiraahdo Cabdullaahi Axmed Ciise waxa lagu eedeeyay uu ka dhaartay oo ahayd gabadhaas inuu isticmaalay maadaama uu ka dhaartay wuxuu qirtay gabadha inuu damaaciyay maadaama ay gurigiisa ahayd meeshu damacaasna uu ku sameeyo arintaas oo ku galay waxa asna lagu xukumay 6 bilood oo xabsi ah oo tacsiir aabaha dhalay gabadha kufsiga loo geystay Nageeye Maxamuud Tarabbi waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay xukunka shariicada islaamka uuna ku kalsoon yahay kitaabka Allah sharciga Ilaahay waa ku qanacsanahay raali baan ku ahay kitaabka Ilaahay waa ku dhashay waxaan ku dhaqdaa waan ku qanacsanahay 14 ugu dambayn maxkamadda waxaa soo xiray gudoomiyaha degmada Gurceel Cabdullaahi Maxamed Barre Beenta oo bulshada u jeediyay hadal iskugu jiray dardaaran iyo digniin falalka caynkan oo kala ah Cabdulqaadir Guure Universal TV